shirkan oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar oo ka soo qayb galeen golaha kabaniga iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ugu horreyn u soo fadhigay golaha ajandiyaasha kala fadhigan sideedad ay kamid yihiin dardargelinta shaqada iyo shaqaalaha iyo balaarinta qorrax ee Street Majidka taga hospitalka Karamardha aan ka hadalno sidii loo dhisi lahaa wadadan maxaa ku rahaa qorrax Street ama wadada dhakhtarka mataqaana Karamardha hospital ama qorrax Street marka taasin wadadaas waxa weeyaan halbowla aan ka hadalno in qorsheedii oo sidii loo fulin lahaa ama wadada islaamiga dhisaan ku soo dhigayo in loo horkaliyo wadada waxa weeyaan balaceeda iyo dharkeeda iyo quality-ga inta ka eego ajandiyaashan ay xubnaha kabaniga cudbu ku ansixiyeen kadib ayaa waxa lagu dagal falanqaynta wadada qorrax Street Majidka taga hospitalka Karamardha oo dhan 2.6 kiiloomitir balaceedu uu yahay 15 mitir taasoo xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya u go'aamisay in laga dhigo 30 mitir sida jidka Kali Street ama wadada halbowlaha ay dhexmartay xarunta deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee magaalada Jigjiga wadadu waxay noqonaysaa sida wadadan kaliya oo kale ay laga hadlaysaa marka laga bilaabo bundada ugu sokaysa ee kalaaga kore ilaa iyo laamidan kale meeshii ku dhamaato toga ayay noqonaysaa laba haad oo sida wadada kaliya oo kale ay wadadan qorraxayna noqonaysaa waxayna noqonaysaa mashaariicaha laf dhabarta ee bilicda magaaladeena wax ka bedeli doona horumarkuna dee waa xarun badan oo guryaha duway iyo waxa ka dambaysa sida wadadeega kaliya oo kale ay noqotay qorraxda madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya xooga saartay sidii xarunta deegaanka magaalada Jigjiga u noqon lahayd magaalo bilic leh oo ku habboon kaabayaasha dhaqaalaha iyo noocyada maalgashiga loona baahan yahay in magaalada Jigjiga laga hirgeliyo jidad aad u waaweyn kuwaas oo iska kala dooshi karaan dhammaan gaadiidka ku sugan dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya intaas ku daray in xukuumaddu ay dhameystirtay qorshahagaha wadadan lagu hirgelinayo sidoo kalena la ansixiyay dhammaan bahjeedkii ku bixila wadadan haddii noqoto lagu fulinayo wadadan iyo weliba magdhowga ee la siinayo shakhsiyaadka iyagu degan hareeraha wadadani oo ay wadada u galayso dhanka bari 14 mitir waqti xadirkan ay tahay 15 mitir mustaqbalkan ay noqon doonto 30 mitir sameeyo laga waran iyadoo maxaa ku rahay sharciga nidaamkii uu sharciga dhigay loo fuliyo haddii noqoto maxaa ku rahaa dhanka guryaha dumaya dadkii la hadlo waa laga maarmaan iyadoo sharciga shuruucda loo marayo in la hagaajiyo sida maxaan ku rahay dhisaan ku dhigay laba haday noqoto maadaama halbowlaha magaalada ay tahay laba miisaanad buu baahan midii lagu fulinayo wadada oo miisaan badan iyo tii maxaan ku rahay magdhowga aad buu badan tahay waxa weeyaan miisaan badan bay taqaanaa iyo maranaysa lagu fulinayo lafteeda waxaan ku rahay wada waxa weeyaan laba hal markii la yiraahdo haddana ay noqoto waxa weeyaan laami quality-geedu ay magaalo tahay laami isku mid maaha 4 saac shaqeynaysa laami marka 4 saac shaqeynaysa waxay noqonaysaa tan kaliya oo kale dhankiisa wasiirka xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha injineer Asad Cumar Xuseen oo nagu warbixiyay qorshaha wadadani ayaa sheegay in dhammaan bal dhameystiray daraasaadka jidkan iyadoo iska kaashadeen injineer ka socday xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha iyo injineer ka socday maamulka magaalada Jigjiga ayna soo dhameystireen wadadan qorrax Street ama sida loo yaqaan Karamardha hospital horumarta wadadaas oo markii hore balaceedu waa 15 mitir ka taasoo uu qorshaahuhu u balaariyay 30 mitir oo ka dhigay balaceeda wadadaas oo ahayd 2.5 kilomitir marka hadda oo guda galay wadadaas design-keedii aan soo dhameystirnay wadadaas oo dhanka marka bariga 14 mitir ay ka duminayso dhankan galbeedna ay ka duminayso 4 mitir marka taasoo dadka degan meeshaas magdhowgoodii iyo compensation-koodiina loo diyaariyay lana qiimeeyay ayna soo dhameystireen xirfadlayaal maamulka magaalada iyo xirfadlayaal iskugu jira xafiiska horumarinta magaalooyinka isku soo wada duubo kala fadhigan ayaa markii uu dhamaaday waxa la isla qaatay in la dardargeliyo dhammaan adeegyada aasaasiga ee horumarneed ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo haysa shacabka deegaanka iyo in laga jawaabo su'aalo horumarneed ay qabaan bulshada deegaanka Soomaaliya Itoobiya lana joogteeyo dardargelinta shaqada iyo shaqaalaha